gabadhan waxay ila soo xiriirtay 18 bisha aan ku jirno November 2022 bishii 11aad waxay leedahay iyadoo murugaysan abaayo meel aan tagin ma jirto wallaahi Itoobiya Hindiya Malaysia waan wareeray wallaahi alle ayaana wax kasta gacantiisa ku jiraan wax rajo ah malihid ayay idhaheen abaayo khayr alle ha ku siiyo wallaahi dhakhtaradu aad ayay ii waaleen walwal ayaa idilay ani dhan buuq ayay leedahay gabadhan 7 sano wax ma dhalin 7 biloodna dhiiga caadada ayaa ka maqnaay walwalku ugu badnaayna sidaas ayuu ahaay dhiirigelin kadib midaawaadkan markaan u diray ee YouTube-kayga ku soo biirtay maasha Allah ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuu ka farxiyay isla bishaan aynu ku jirno 27deeda ayay haddana ila soo xiriirtay 10 maalmood kaliya ayay iga maqneed 2022 waxay leedahay qoraalkan Leylo abaayo waad mahadsan tahay dhiigii ayaan helay markaan taladaadii qaatay 7 bilood ayuu iga maqnaa maanta ayaan helay gacanta iyo aqligaba alle ha ku barakeeyo ayay leedahay Allahumma aamin ya rabbi xabiibti adigana farxadeena ayay tahay Allah ku siyaadiyo oo la saalixiina dayibiinana Allah kugu badalo dhiiga caadada ee kugu dhacay shalay Allah ku badiyo Allah ku barakeeyo caadadii hadii ay noo timid waa faraxsannahay gabadhan waxay isticmaashay fiidiyogan oo dhameystiran YouTube-kayga ayaan hadda soo dhigay Leylo official ka soo daawo subscribe-na ii saar sotonka ii gaarsiiyo like-na ii saar adigoo like ii saaran ha iga tagin follow-gana 100k ii gaarsiiyo dhanka TikTok-ka waa mahadsantihiin bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh walaalayga qaaliga ku soo dhawaada channelka Leylo official haddii adigu cusub tihiin subscribe like comment share haddii aad hore la joogteenna like comment share waad mahadsantihiin sida quruxda badan mar walba igu share gareynaysiin igu like gareynaysiin igu soo biiraysiin hore ila joogteen aad ila fadhideen mar walba jazaakumullahu khayran qof walba xanuunsan caafimaad degdeg Allah siiyo inta caafimaad qabtana Allah u siyaadiyo inta awlaad haysato awlaad Allah u barakeeyo intaan haysanin Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ha ku irsaaqo kuwa dayibiina inta ma aragta guur raadinayso guur xalaal oo degdeg Allah siiyo inta ma aragta dhimatay oo islaam Ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo dhammaanteena Ilaahay dambigeena iyo dambi waaridba Allah dhaafo walaalayga qaaliga soo dhawaada waxay idin la wadaagayaan maanta midaawaad degdeg dhiiga caadada u soo celinayso dhiiga caadada hadii ay walwalkaaga jiro dhiiga caadada ayuuna degdeg u keenaa waana kana meesha waxay noo shiidan shanfax ama xabadu rashaad sida u taqaanid ayaan soo shiiday halkaas ayaan ku soo shubay farxad ayaan idin la wadaagayaa mar walba gabar ayaa iga soo farxisay waxaan rajaynayaa inay bishi ku xigtana iyadana mar labaad iga soo farxiso dhiiga caadada 7 bilood ayuu ka maqnaa gabadhaas waxayna ku soo daashay intaasoo dhaqaatiira intaasoo malaayiin oo lacagna way ka soo dhamaatay 10 maalmood kaliya ayay labadan shay oo lacag fiican joogin oo malabkaas in yar oo lacag ay ka soo baxsatay shanfaxda wax yar ay ka soo baxsatay 10 maalmood ayay niyada siisay dhiigii aan ku dhici jirin la dhihi jiray niyada laga dili jiray malabka waa malab saafi ah kanna waa shanfax ama xabadu rashaad wadankeenana aad ayuu u yaalaa waxaan idinku sheegaa waxyaabahan af Soomaali ayaa idinku sharaxaa ma ahan Carabi iyo English dadka dhahayo maxaa ka sameysay commentiga ayagoona daawanin ayay ku leeyihiin maxaa ka sameysay walaalay si fiican u fiirso waa kana qaantada weyn oo malabka ayaan halkaas ku shubaya waa qaantada weyn ama malqaacada weyn ayaan halkaas ku shubay shanfaxdana qaantada yariiska oo shaahiga waaya si fiican u fiirso fariiso koobsha soo shubo shido tartiibkaaga casriyahaaga soo samayso fiirso waxaan ka sameeyay waa kaas si fiican iskugu qasaysaa kadibna adigoo waxba cunin aroortii ayaad cunaysaa gabdhaha dhiiga caadada ka maqan ayay khusaysaa oo muddo baan ku dhicin ما شاء الله تبارك الله سو دواada walaalayga qaaliga
سفيعنا وقصيسا مركا قصتي سيدي وكنتي أو قراعيسا وبعدين واسلافسينيسا دقيقة ذاك بعد وحي أدكو قراعة لهاد أيادكو قراعة نيسا مركا الله تلساره قرآنكو أخرسه ومرغيسنيد قودان وحي دهيسي 18 بشي aanu ku jirnay ay ila soo xiriirtay isla bishii 27 waxay iga maqneed 9 maalmood mas 10 maalmood meelahaas iga maqneed oo bacdeen markay soo isticmaashay dhiigii caadadii ay heshay iyadoo faraxsan qoraalkaas ay dhanka WhatsApp iga soo qortay anigana wixii farxad waa idin la soo wadaagayaa hadaba waxaana natiijo leh bal ka faa'iideysta ayaan idin leeyahay gabadhi ku faa'iido anna waa soo carara waa idin la soo wadaagayaa marka channelkeygana sare igu qaada ii share gareeya ilaahay dartiis ii la gareeya dadkii hore ila joogay iyo dadkii igu soo biiran waxa idin leeyahay farxad igu noolaado waligiin ii noolaado insha Allah qof walba muraadkiisa macsileen gacanta Allah ka saaro qof walba walwalsan walwalka Allah ka qaado Allahumma aamiin annagana ilaahu naga reebin yaa rabbi dhammaantiina waxa idin leeyahay waxyaabaha farxadda leh shanfaxdan iyo malabkan walwalka ayuu baabi'iyaa qofka markuu murug ku taagan yahay cabsanayo asaga dhan naxaayo hurti karin haddii aad malabkaas iyo shanfaxdaas quraan intaad ku aqrisatid aad isla markii isdhaafsiisid 2 beri ka bacdi walwalkii oo ka qaadmay energy yeelanaysa adiga dhan faxfax tabar guriga xataa hool aadan qaba jirin sariirta hadaa saarnaa jirto horaad ka kacaysaa hadaadan soco jir horaad ka soconaysaa hadaad ordi jir horaad ka ordaysaa han ku dhahay biyo badan aad cabaysaa adiga dhan jirkaaga dhan wuxuu ka dhigayaa maasha Allah fitamiinaad fara badan ku jiro all vitaminiska adduunka la soo koobay ayaa ku jiro alaabtan xabad rashaadkan iyo malabkan wallahi hadaad hal qaanta maanta intaas aad ka isticmaashid isla maalintaas aad dareemaysaa walwalkii ku haayay adiga dhan murugadii ku haysay culeyskii ku haayay wixii oo dhan oo ka haaday ayaad arkaysaa ku dadaal farxadaada ku dadaal inaad wax kasta cuntid ku dadaal inaad dhaqdhaqaaq samaysid ku dadaal inaad dhiigaaga caadada heshid haddii aad walwashid ugxaantaada dhaqaatiirta inay ka soo deerisay weli waxa ku leedahay wax rajamalid waa duqowday soco 40 sano jirtaa lagu leeyahay 40 jirna dhiig kuma dhici ku leeyihiin war 60 jir ayuu dhiig kugu dhacaya haddii aad dadaasho isnafaqaysid hadaba alaabtan 3 bilood ina wadid isku day ina isku rooroonato isku day ina fadhiga ka kacdo isku day waliga haniyad jabin haroorin dhaqaatiirta niyadda ka soo dilaysana ilaaha ka weyn ilaahay subhanahu wa ta'ala ka weyn quraankaaga akhriso fadhiga ka kac dadaal cuudu bilayso salaad walba tukatin ilaahay sujuud ku bari ilaahay mar walba hadii aad baradid oo midaawaadkaaga aad cuntid isla markuu ka farxinaya adigoona dareemeynin ayaad irdaha khayrka ilaahay ku furmay oo ku furmaya ma sha Allah tabarakallah hanixin awalwalin hana murugoonin mar walbana inuu Allah subhanahu wa ta'ala haayo ku farax inuu ilaahay wax walba ku siinayo ku farax inuu ilaahay mar walba oo ku dhaheenin waxba kuma siinayo ibariyo ku yiri qof walba wax doonayo ibariya anigana waa idin la jira ibariya ilaahayna mar walba bari asagana tala saaro fi amaanillah.